dadka qaar waxa macquul ah 150 kiilo inay iska ridaan oo ay 80 kiilo gaaraan inay ku qaadato 2 sano ilaa sanad iyo bar laakiin videogan waxaan kugu la qaybsan doonaa insha Allah taala hadii aad 150 kiilo tahay ama 100 aad kor u dhaaftay qaab fudud oo 80 kiilo aad ku soo gaari karto ogow adoo 100 iyo abaaf ahaa kiiladaada marka aad 80 ama 75 imaato ma ahan kaliya inaad miisaan riday qofku wuxuu sameeynaa wax la dhaho identity shift yani shakhsiyadaadu dhan a isbedelayso sababtan ana ku sheegay waxa macquul ah maanta miisaanka ku saaran dartiisa in waxyaabo badan oo kalsooni dara abuuraya inay kugu jirto laakiin marka aad aragto ama miraayada uu kaaga soo muuqdo qof aadan xitaa weligaa arkin ama aadan ku riyoonin xataa maalin dabcan inta safarka gudihiisa ku jirtayna ayba ka dhacsaneedba in maalin aadan qofkaan oo kale arki doonin inuu maanta ku soo hor istaago assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dabcan maanta waxaan kula qaybsan doonaa structure ama wadooyin anigu dadka aan coachka u ahay ee isticmaaleen oo ku fududeyn kara safar waqti dheer ka qaadan lahaa xaqiiqda markaan ka hadalno dadku waxay aaminsan yihiin marka barnaamijyadan weight loss kala sameynayo ama ay arkaan before and after sawira ah in ay iska tahay wax sahlan xaqiiqda waxa aad sameynaysid waa laga yaabaa ama macquul waaye inay sahlanaato laakiin struggle badan uusan before and after ka sawirka ah ku sheegeenin yaa labada sawir u dhaxeeya hada u malayso shay walbo in la bilaabo inay dib badan tahay laakiin mar hadaa bilaawdid oo dhaxda ka gasho ay sahlan tahay waxa ka dib badan ama ka adag marka shayga bilaawdo 6 isbuucna aad ku dhex jirto dabcan wax miisaan uusan ka dhicin jirka dhan uu ku xanuunayo craving badan uu kugu abuurmo oo afkaaga macaan la dhareerayo sidoo kalena cid garabkaaga taagan oo ku sacbinayso aysan meesha ka dhaweyn dagaalkaas inta badan maskaxda ka dhaco yaa wuxuu keenaa qofka inuu si degdeg isku dhiibo waan inta badan waxaad aragtaan qofa maanta weight loss bilaabay 1 isbuuc 2 isbuuc 3 isbuuc 6 isbuuc kadib gaarigu iskaga soo dagay transformationka saxda ah ama isbedelka qofku ku dhaco 3 shay yaa inta badan hogaamisa qofkii inuu structure leeyahay waa in aad garanaysaa safarkan intuu uu ku socdo waxa aad sameynaysid hadaad 3 bil ugu tala gashay iyo hadii aad 6 bil ugu tala gashay waa inaad u dabaaldegtaa guulaha yaryar ee aad gaarayso tusaale ahaan hadii isbuuc ama 2 isbuuc aad ku jirtay 2 kiilo ama 3 kiilo ay ka dhacdana niyadaha iska gelinin intaan inka badan raadinaysa taas waxay carqalad ku noqonaysaa maskaxdaada iyo qaabka ay maskaxdu wax u xifdinayso hadii maskaxdaada ay kaaga barato inaad mar walba tahay qof aanan ka mahad celinaynin guulaha yaryar uu gaarayo waxa laga yaabaa bari xataa guulaha waaweyn marka aad soo gaarto ciriirigi iyo qalbi xumadii aad ku jiri jirtay xitaa markuu miisaanka culus ku saarnaa inaad weligaa ku dhex jirto marka wax yar markay ku kordhaan isku day in aad guushaas aad u dabaaldegto qodobka saddexaadna isku day xataa markii ay adag tahay marka aad u aragto xataa inaad is dhiibto ay mudan tahay inaadan gaariga ka degin oo aad horay u socoto talooyinka aan ku siinayo marka waxa laga yaabaa inaad la qabsatay ama aad u barato coachka qaar inay inta ku soo hor istaagaan ay ku dhahaan suuxii 3 bacanjeero cun galabkii hal qaando bariis cun habeenkiina cashada ka tag amaba casho kalluun yar iyo khudaar cun waxaas structure ma ahan talada aniga aan ku siinayo taaway ka duwan tahay anigu waxaan rabaa waxaan adigu inaad xorriyad u yeelato waxaan rabaa inaad ila fahanto yani structure-ka aad ku shaqeynaysid inuusan noqon karin mid aniga intaan ku diyaariyo dabcan aan cunto ku siin karaa laakiin waxaad ogaataa cuntada aan ku siinayo meel bay ku eg tahay tan koowaad waxaad isku daydaa inaad samayso 3 cunto isku aadi qado iyo quraac iyo casho waxnaha u dhaxaysiinin quraacda maxaan ka dhigtaa qadada maxaan ka dhigtaa cashada maxaan ka dhigtaa dabcan 7 beri oo free diet ah kaliya email-kaaga gasho qaybta hoosaan ku soo gelinaa cuntooyinka meeshaas ka tusaale qaado maxaa quraac maxaa qada ah maxaa casho ah saddexdaas waqti aad cunaysid waxaad isku daydaa in aadan wax snacks u dhaxaysiinin in aadan wax cabitaan u dhaxaysiinin wax shaaha u dhaxaysiinin sidoo kale tana wax fruits ah hataa aysan dhaxdeeda gelin mar walba jirkaaga ama calooshaada waxaad siisaa waqti cuntada ay cuntay ee ku dheefshiido 2 dhaqdhaqaaqa markaan ku leeyahay waxa macquul ah in niyada ka soo gasho gym waxa macquul ah in niyada ka soo gasho aalamiita hal saac qaadanayso muhiim ma ahan
6 bilood maanta haddii aad maanta bilowdo oo aad 20 daqiiqo dhaqaaq samayso way ka badan tahay haddii aad 6 bilood maanta haddii aad bilowdo oo aad 30 daqiiqo dhaqaaqa aad samayso wallahi 6 bilood kadib isbedel weyn kugu imaanayo dhaqaaq inta adigu awoodo sameeyna waxa aad awoodi karayso qodobka saddexaad anigu inta badan qodobkan ardaydeeda haday tahay ama qof hadaan tala siinayo waxaan ka dhigaa mid aanan laga wada xajoonin ama non negotiable maxaan ka wada 2 maalin ina heli karto ina gym ka tagayso 2 maalin ina heli karto xitaa wax kale hadaan sameyneenin bahashan yare lastikada ama bambiirada intaad soo gadato jirkaaga awood aad u sheeganayso waxaan ay dhahan strength trainingku wuxuu noqon karaa aalmitooyinka baadigaaga aad isticmaalaysid wuxuu noqon karaa aalmitooyinka bahalaha lastikada aad isticmaalaysid sidoo kale wuxuu noqon karaa aalmitooyinka gymka lagu sameeyo ee biraha lagu train gareeyo waxa ogaataa berito markuu miisaanka ka dhaco maqaarkaaga meelaha yaryar ee firaaqada noqon doonto waxaan aad skinka lose garoobe aad u aragtaan waxa kaliya buuxin karo waa muruqo ma ahan cream aad intaad soo iibisa aad marisid ma ahan muruqa buuxin karo muruqana in la dhiso u baahan yahay waxa kaliya lagu dhisi karana waa in qofku strength training sameyn karo isku day inaad tiragarayso safarkan aad galayso tiraagaray waxaan ka wadaa inaad isla socoto marka isla soco ku dhahay macnaheedu maaha maalin walba inaad miisaan korto miisaankaagana aad cabirto mana ahan isbuuc walba inaad intaad miisaankaaga cabirto miisaanka noqdo waxa mar walba ku hogaaminayo looma baahna haddii aad miisaankaaga cabiraysid 15 maalin mar cabir laakiin waxaad wax ku ogaataa ama ku tiragaraysaa kow awoodaada sida isku bedelowsaa gymka waxa laga yaabaa maalmihii hore marka aad tagaysay in aadanba waxba qaadi karin maanta se dareemay wax culeys ma qaadi kartaa neeftuurkaaga sidoo isku bedelayaa treadmillka marka korto ma nafta ka dhacaysa mise waad awoodi kartaa 30 daqiiqo inaad aalamiteeso 20 daqiiqo inaad aalamiteeso sidoo kalena waxa soo gadataa xarigahan yaryar ee dadku dharka cabiraan ee wax ku cabiraan xarigaasna calaamado u sameeyso calaamadaas dhexdaada iyo boodiyaha iyo gacanaha ku cabir taasa kaaga fiican in miisaan aadan garanaynin xataa mararka qaar miisaanada qaar ayaga qaldan adigu ma qaldanid yeesan kulu gooynin marka qodobka ugu dambeeyana ha isdhiibin marka aad aragto in aad daashay waxaad ogaataa haddana kuu sii sheegaa safarkan daal la'aan ma noqonayo niyad jab la'aanna ma noqonayo qofka kaliya ku guuleystana waa qofka marka ay asxaabtiisa ama dadka ay isla wada socdaan cuntooyinka asaga laga ilaaliyo ay cunayaan asaga ku adkaysta wixii uu miisaanka iskaaga ridaayay qofka marka ay dhalinyarada habeenka caweynayaan ama TikTok ku mashquulsan yihiin ama dhafrayaan intuu taleefanka iska damiyo sariirtiisa kore ee seexda ninka inta badan guuleysto waa qofkaas laakiin waxa ogaataa haddii aad rabto noloshaadii hore inaad weli ku jirto haddii ay videoga waxaan ku bilaabay waxaan ma aha weight loss waa identity shift processka intaad ku guda jirto qof cusub aad dhisaysaa qof cusub yaana beri hortaada ka soo bixi doono oo walaahi aamin adiga xataa aadan garan karayn qofkaas qofka uu yahay isweydiinayso ma qof nuucana aniga igu dhex jiray kama dambeyn videoga waxaan kusoo gabagabeynaa fat burner cabto waxba kaama bedelayo detoxification aad samaysidna sidoo kale waxba kaama bedelayo inaad suuxii soo kacdo oo aad liin dhanaan iyo sanjabiil iyo khashin aad isku daldasho actually waxba ma bedelaan sidoo kale tana video TikTok aad ka aragtay ama YouTube aad ka aragtay oo 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo kan samee ku dhahayana waxba ma bedelo qofku waxa fiican inuu structure leeyahay waxa fiican inuu go'aan qaato kadibna ilaa uu go'aankiisa ka gaarayo neefta uu isku celiyo haddii aad barnaamijkan kusoo jirto waqti dheer dabcan haddana aad niyad jab dareemaysid oo aad go'aansan rabto inaad iska dhaafto waxaan rajeynayaa videogan inuu wax badan ka bedelay oo walaalkaa Sabrie haddii aad nagu cusubtaa waxaan ka codsanayaa videoga inaad follow tiraa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.